sheegay in dadka dhan raali kayin unoo ka nool degmada tan xudur gobolka Boqol degmada xudur anoo fursadan ku faa'iideysado daraha Soomaaliyeed waa isku duubnida dalkeena horumarkiisa waa doorashada xaqa dadkeena waxay doonayaan bulshada diyaar u tahay maxmed inuu nadadeeyo oo dabagalna dalka hoggaankiisa qaranka daaficiisa daryeela ummadeena maxmed uu ku dooranay dalka ku duceeyo dadku way ku jecel yihiin ku dooranay maxmed dushaadan malab ku daadinayna ilaahay dunida uumayo dadkuna aqliga galsho maxmed waa inuu dooranay wuxuu doonasi diiwaan xusuuseedka baan ku dul qarnay maxmed taariikhda baal dahab labu dalkeena uga jira dadka Soomaaliyeed xumaanta diida wanaaga doorta dadaalan horumar gaarne